madaxa xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka ee degmadaasi Dhuunyar ee galbeedka gobolka City ayaa sheegay in degmadaasi ay ku sugan yihiin barakacyaal aad u tiro badan oo ka yimid jiidda hore ee colaadda iyo dhibtu saameysay islamarkaasina tuuladaasi bari weyn ay ku sugan yihiin bilaa hoy islamarkaasina ay dhistaan qalwado taasna ay sababto ay dhibaato u keento in xilliyada roobaadka ay ku dunto islamarkaasina ay u geysato dhibaatooyin fara badan waxaana hay'adaha samafalayaasha u baaq u diray in ay shacabkaasi barakaca ayaan awoodin inay guryo dhistaan laga soo taageero dhinaca shiraacyada iyo sidoo kale agabka kale ee guryaha lagu dhisto maadaama dad aad u tiro badan ay bacadka u jiifaan hoy la'aan xilli roobaadkan islamarkaasina waxa uu tilmaamay in qalwada markay dhistaanna ay kala kulmaan dhibaatooyin fara badan sida uu sheegay madaxa xafiiskaasi Dhuunyar baahiyada shiraacyada hoy la'aanta ama maxaan ku yiraahdaa hoy la'aanta waxyaabaha ka midka ah waa ka kale indhihiina inaad ku aragtaan way qurux badan tahay ilaa sida magaalada oo dhan inay sida tahay marka baahiyihii aan idin soo sheegnay ama aan cabashooyinka niga dhigaynay sida waxaas ka mid ah in aad aragtaan itusiyo itaabsi kulay way fiican tahay inaad sida u ogaataan aad wixii aad awoodaan aad uga soo dirtaan insha Allah iyo rajaynayna mararka qaar waxa dhacda roobabka waaweyn ee mahiigaanka marka uu da'ayo kala qalwadan way ku duntaa ilmihii yaraayo dhax jiifa tusaale hooyadii aabihii marka waaba dareemi kartaa xaaladdu sida ay tahay marka in wixii laga awoodo in inta karaanka lagu soo dadaalo iyo rajaynayna insha Allah halkan aad arkaysaan waa xarunta degmada Dhuunyar ee Bariweyn waxa ku sugan tira badan oo barakacyaal ah oo ka soo cararay colaadda ka socota galbeedka City gaar ahaan jiidan Garani iyo sidoo kale ceelashii dhawaanta ay dagaaladu ka dhaceen sidoo kale halkan waxa ku sugan waa dadkii ka yimid magaaladii Cadayti ilaa Cadayle waxaana ay shacabkan ay jira baahiyaha ka jira kamida iyadoo ay dhistaan qalwadaasna ay carro dusha ka saaraan isla markaasina ay khatar nafooga ku galaan xilli roobaadka waxayna codsanayaan in laga soo caawiyo dhinaca shiraacyada maadaama ayna haysan hoy kale oo hoydaan sidoo kale baahiyo kala duwan ayaa halkan ka jira goobtan ku aragnay oo ka mid tahay barakacyaal aad u tiro badan iyo caruur agoona iyo dad hayntoodu yartay oo aan haysan huga ama dhar ay xidhaan iyadoo lagu guda jiro bishii barakaysna 10kii u dambeysana waxay codsanayaan in laga soo caawiyo dhanka ciida xuna mas'uulku tilmaamay oo ugu baaqay dhammaan hay'adaha samafalayaasha inay hoos u soo eegaan shacabkan barakaca ayaan haysan hoyga iyo sidoo kale caruurtaasi hayntoodu yartay oo ay ka qayb qaataan barnaamijka ciid si walaalkaasi uu u farxo maalinta ciida iyadoo iyaga u sii dheertay shacabkan dhibaatooyin dhinaca guri hoy la'aanta iyagoo sidoo kalena ku nool qalwooyinkaasi oo xilli roobaadka la kulma dhibaatooyin fara badan haddaba hay'adaha ayaa waxaa la sheegayaa inay ka qayb qaataan barnaamijkaasi taageerista caruurtaasi